آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dhulka laga qaaday dadka kala keenay meel lama dhigo wali haatan erkay dhulka intuu dhaxaysay jooga ugu dambeyn waxaan ugu dambeysay warmid maxaa u dambeeyay ka la siisi 23 hektar baan ilaa xaari leey waa la xaaray dadkii lahaa ee boorramay dag wala fageel iyagu baa la isku jabsaalay dad boorran kamid ah lahaa dhulkaas dadkii meel lama dhigin iyaga laftigooda kuwii kala dadka dhulka laga qaaday kolkii horena iyagna meel lama dhigin nin waliba waraaqad baa loo siiyay ugu dambeyntii waxa la yiri taabaan inay tuuri waan qaadanay taagi waan qaadanay waayo taagi hatta qadana jooga kuriyanay hadda toolo way dhamaataan leeyahay hor haddana albaabka si garaaca leey balaka albaabka si garaaca leey horta ko kala sheego dadka afkeena ku hadlay ciise leeyda mise dadka kale dadka afkeena ku hadlay ciise leeyda horta tiraba ku dhima ruko kala sheego gumeelaha kale ee Soomaalida kala haba noqoto laba reer baan ku dhinaala magaalada tiraba bal waa kana magaalada tiraba markaa jirtay dhaaf xitaa bambadi baa loo gashay oo la shanay oo maanta nin walba 500 kilomitir oo la dejay dhisteen kolkii reerkeennii gashay uunba jijicadka isku rogtay weliba maanta haddana halkii ay isku rogtay iyay taaganta hebel utag cabdulqaadir utag mustafa utag maxay utag ay waa u tagun weeyaan waxaan baan nee haynaa cadna weli lama odhan anu waxaan ku jira dadkaa la siiyey eedaaga kolka aan haddeeto albaab kastiba aan taabaneen wax nooga naasacada weyn iyo haddeeto la iska fadhiisan dhulkii waa laga qaatay xaqna lama siino ragga dhulku laga qaatay ugu dambeyn 8 hektar laga qaatay baa ku dhex jira anugu meesha beertaydii iyo beerkii waa laga meel aan ka taagay meel aan hadaan biyo ka soo laanta nagu filanta xafiiska dawladda war meel aan ka aroorto muhulaan marinta dawladdaasina xaqaysa la sheegay inta kale u baan ka qaatay magaalo umara waa lagu furi doonaa baan ku taagana waa meel shirkad kale waa reerka gudciis horta gumiis weyn baan haysan anagu dawlad ma hayo haday namadayay soo barbaartii tihiin oo kuwaan dhalaytiin waxaan leenahay reerkaas dhibaato weyn ku jiray ragga xafiisyadana weydiiya dawladda Itoobiya maqashiya oo reer sida u dhanay 600 oo guri يلا بركاش ورقدي حتى ولا سي يلا مرة دك مدكيس أمر كي جقدا لسه جقدا هالكي كنت خلى عرك هدين وكول إنه ما تعرف لكن بير خلاها ما شاطت خلوه ولا تجي يلا لها قرش لبس ولا قال نسوي اللي قبل وجوب وكنت لو كنا كنت دي بالدولة دي دولة الكوكب درجات إنه وطن كأنه أول شيء معمول أيه هو وح لقات خيره يعني لقى أرجع هو عم حيسكت أنت هتبص لقى صورة وجد والله ما هو تصور هذا قبول تواصله يضمن قبل رجل السؤال سيبنا الحمد لله رب العالمين أنا ما قصدي لا سعودي تابعني اللي جوا ما قصدي لا سعودي الحمد لله رب العالمين بوشينا ما أنت وين قارني لكن أنا كم نردلنا من واحد قوة تعبنا يا وأروح على شيء تذكر واحد يقول شيء أنا دوارهم ما أنت كقبلها جوا شيء في صوص بقى جاي كين بقى إيماني أنت يختار بندونا يا وركني حاجات جاي ليسا وتشير كي يجوا ولا كي يمر أنا يا أفر بوليس بالوية ريو عجها بلغ عجرا مع دمر قالوا أنا هش حاجة كتعة
انت عبلا قبلا ياي ما مركو ينو راعين انت ماشي تاج انا هوس قبلا اكد بلودي ما جعل يانو كو طلبات waxa lagu sheegayo jirba waxa dhisay rag caynkooda kala dhisay jirba qabado habeenkii markuu aka shirka la galana ha adisina maalintii dhisay buurta qof baadiye ka yidban cisho dhaweyn tagalaa buurta saan dawre kuwa la haduu qolf qasiyo wana baas afar booliis ma la isku jibinay qof ma xidhan kareen saaban uga adduunka uga dambayna maagaysa marka ciil waxay noqotay dadkii ku dhashay iyo deegaanba haday noqoto ina qofkii waxba kii meesha ee walaalkaaye meesha la keenaba وأديك يدب على كوكو نقطة وإحنا كوكو أقولي نينا ولاركي بيرنا نينا ولاركي عجا وكجراعي وبوليس أفكرنا أنتوا كويرنا جمرة قليلة ما هي جوات جو دمرك إمسا دمر على على جسوري ده إمسا دمر على على جتشفيه وأمر رد الله عيسين بورن تطالع ما أنت والحمد لله يا دام دلوا مناي إلى هذا إنك عمري جينا هذا يا رجل إلى هاي سال عدو قوي تبسين عدو جينا نجتشفيه إلى هاي قبعة سال كويس تيجي إلى هاي قبعة ناس واب بني ما ينوي يمك ولا لها يوم هاش ما عمرك قبل هذا بورن با مقالة أنت علينا بورن واحد يبغى تبادل ما تيرو حاجينا بورن سارع لها السلام عليكم. joogta Facebook aan ka wadayna cabashadana dawladda waan gaarsiinayna inaguna maartay ka dhalinyar ahaan iyo ka oday ahaan iyo ka hooyooyin ahaan inaad xaqiina u toostiin oo u kacdiin waa Vita Spring oo soo saarto biyaha waa ninkii Vita lahaa oo dhulkii boorneed dariiqiyo waxbuu diidayba laba xaafadood buu kala xidhay xaafadda ka degan xaafadda ka degan ilaa qabuurna ku taala ilaa qabuurna ku taala xagan hoose xumuud ka xag meel la mariyo xitaa ma jirto waa qasab in jeelka shidii laga soo wareego haddii muud la wada xitaa qofka ka xitaa xagan lama soo maran karo gaari ma soo maran karo waa dhibaatooyin weyn oo magaaladii boorneed la kala qoqobay xagan dixda ilama ay wax isku xidhay jeelka intuu dhaxaysa iskoolkana iskoolka boormeedii kiina soo wankiya kolka xageesna loo maraa sili gamba lagu hurjoon halka digad weyn baa dhibaatadu ma yaro xag laga soo galayna waa qaybta dambe isla xaafad kala uu dayr iyo shabag ku dhex yaalo kale iyay si khalad ku qaateen markaas dadkan waa dad in loo gurmado u baahan meel ay ka soo galaan ma jirto meel xataa haday biyo u baahdaan xagan siligii fiita kaga xidhan xagan gaal shiraa kaga xidhan xaganna waxa kaga xidhan gaal shira qayb kale waa markii la waday hadda halkan waa markii la wado waxaas dadka soo loo galayo dadkan xoolihoogi ma jiro lacag lama siin dhulkii waa gaal shire oo dadkii kala xidhxidhay xagan waa jingad xagan waxaa kaloo degan xaafad baa degan waa la kala gooyey hadal hay Ridwaan iska hadal markii hore 10 hektaar halkaas laga soo qaatay 10 sano horteed wanda rabaa dhaadheer darkiis tabacdi halkaas ku soo guriyay halkan baa laga soo halkan waa meesha la ilaahdo 3 hektaar ee dawladdu iska qaatay ee tiri dadkan booran oo dhan ay ka soo barakaceen xagga maandijinayna annagana waxaan ka mid nahay dadka xagga laga qaatay ee 2 sano oo dhan sugaya waxna meeshiisa ka qabsan karana waxna laga siinin xataa aan qodan karin lacag laga siinin tataki waan siinayna ilaahdo ilaa hadda ayna siinin waxbana ka qabsan karna ilaa hadda marka xitaa dadkan oo dhan ba anaga nagala siman waxba lagama qabsan karo xitaa kuwa oroma aan iska soo dejinay oo qowmiyada kala ah annagii markaa Soomaalina cid wax qabanaysa ma jirto annagii waxna kama qodano dhulkeena annaga u baahan baan waxba ka qabsan kareynaa anagu waxaan kaga soconaa dhalinyartii barbaarkaan ka soconaa waxaan nahay dadka ugu dooday maadaama aan maanta buuran nimanay waxaan rabnaa dhibaatooyinka haysta in aad noo soo gaabinay iyo nabarka ku gaaray adoo nooga warramay inaad nooga warramtid waxaan ilaahay oo meesha yada een haysano ay dawladda xogtooda naga soo qaad ay wax xilli nasiifay na dhacdo een wixii yaraana buulash yaraan ku fuulanay haddana naga daba imatay warqadan nagu dhig ay waan duminaynaa naftir iyaan riddeed maxay ay seed noo duminay
واكا إذا حوق لنا لوكي أنا بقى قلبي هذا يستفاد واكا دمتنا لقى سارة لبض قارب بحرسات يقول عيال كاين عيدا كما كلكنيا يقول لبض الدعم وبين كل كقط أيوه لبض قار هالكي جدا إيش مثلا كده دريسة تاي وحكي ها ما كلكنيا إذا كنا لقد دبت كنا وين هرجينا وفرح أنا جاي نقول جدودي وبكير هاي لقد دلا ينتهي لقطة واستكبر اليوم بدرك كتير كوي رون طبعا يكول الليل أنا كان واقف سر الناقة يا هذا اللي بيجي من إيطاليا ولا قلت من أيام دوك يا بيت بيجي هاي قضية بيسا وحنا جلسنا بولبول كاير بندرك كوهل بولبول كنا واقع ونوجي مدينة ونوجه أصلينا يعني الدولة قاعد تتطور marka hooyo waxay noo sheegtay in dadkii dhulka laga qaatayna waxba la siinin haddana dhulkooda lagu dilayo dawlad ka hadashana jirin marka dawladda rabe gaar ahaan dadka kuwa dhulka shaqeeya iyo kuwa dadka dib u dejiya in ay dad ay arrinka degdeg u eegaan baan rabnaa dhulkii laga qaatay sheeg dhulkii laga qaatay sheeg islaanta dili jibiye sheeg halkan waa meesha la yiraahdo 3 hektaar ee dawladdu iska qaadatay ee tiri dadkan buuran oo dhan ay ka soo barakacayeen xagga maanta jireenay annagana waxaan ka mid nahay dadka xagga laga qaatay ee 2 sano oo dhan sugaya waxna meeshiisa ka qabsan karnaa waxna laga siinin xitaa aan qodan karin lacag laga siinin tataki waan siinay raadin ilaa hadda ayna siinin waxbana ka qabsan karnaa ilaa hadda marka xitaa dadkan oo dhan baa anaga nagala siman waxba lagama qabsan karo xitaa kuwa oroma aan iska soo dejinay oo qoomiyada kala ah annagii marka Soomaalina cid wax qabanaysa ma jirto annagii waxna kama antan adeerkay iyo la jibiye kana waa kuwa hay waa ka albaabadii waa bala muraayado hay muraayadii shaqadeedii oo wadanaba naga joojiyay hay warqaday dibadii ku dhajiyay hay waa ka adinina la leeyahay inta noo duminayna hay waa kuwa waday adeerkay aayadeen hay haday hadleen ma kalkanya ba lagu laayay دكتور أنا بس يوم كمان ayaan loo soo diray kuwa bay leed la dhacay ya hadii booliis ciidan yar uu nala soo diray waxay ahaan lahayd ciidankii dadka leenayay ee makalakanyahii ayaa nala soo diray kuwa yar yarna way leenayeen caruurta yar yarna way leenayeen kuwaan leed bay la dhacay ay daafayeen dadka waaweyn way jijibinayeen ninkii caymada rasaas bay ku aayeen anigu buurta baan orod ku fuulay rasaasidii leegu wey marka waxa weeyaan dawladdiina saaba noo galaysa dhulka yaga han loo rido walaalahay hadii ay dawladdi jirto hana loo qabto siliga annaka wadala bilaa dhul ban ka taagan anu reer baan leh waa siliga meelan dijiimahay buurtaada orod ku kortay buurtaaban orod ku galo buurtaana waxay ka dul dhisteen barkad ceela barkad biyaha ka dhisteen qasab bay ku qaatay wax hebel lagama bixin waana beerteedii buurta anigii baan xagga imisa sanaad beertaa lahayd beerta waxaan leenahay ilaa iyo awowga awow ayaan dhulka dignaa waan ku dhaqanan ku tafiiran xasan faarax dalal waxaan deganahay qabalaha buuran waxaan kamid ahay dadka dhulka laga qaatay baan kamid ahay halkan ilaa iyo gol adag Soomaalida degan horumar baan ka shaqaynaa oo maadaragtay limaa dartii baan dhulka u bixinaa intifaad kuma nihin dadka barakacaya haddana dhulka laga qaadanayo waa annaga halkaa kaga bilow booran ilaa iyo gol adag waxa isdaba yaalla waa Soomaali hal qof oo jago weli laga siiyo oo loo joogsaday ma jirto yaa tani waa tu iska cad oo iska caadi oo sacad loo barakicinayo ummaddan imika dad dul haysta ma jiro waa wada barakac in buu la xidhow baa lagu dhow yahay marka annagu xisbigii de meesha noo fadhiyay Soomaalida ahaa ee dadkan de shacabkan leeynde meel buu ka tirsan yahay rag baad de meesha u fadhiya waxa ay nagu tiriyana ba meesha ay nagu iloobeen ma garanayo balse annagu waxa taa noo dheer in meeshaadii adiga oo laga qaadanayo ul lagu daro amba xoog askar lagu soo kaxaysto oo la jajabiyo ba adigiiba haddaad adashid ba lagu xidho ayaa noo dheer annagu waan dulmanahay barakac baanahay waxba ma hayno dhulkaadii jagana kama hayno dawladda waxaan ku codsanaynaa hadday dastuurkan sheegayso uu wax ka jiro uu mid yahay ya dikadaa wixii ka hooseeya waa hijiwad baa leeyi wixii ka sarreeyana waa hijaabi baa leeyi waxa ummadda kala qaadaya inuu hal shar Itoobiya 2 sharci hadday leedahayna de waa naloo sheegay midun hadduu yahayna waan de iska ogaanaynaa siduu yahay unbaa lagu wada dhaqmi
marka walaalahay waxaan ku codsanayaa dardaarta in halkani waa gaal shire ee buuro ku taal حاجة محاية شيخي رضوان حاجة سوجو رمياقي أفهم مال كده halkan waa gaal shiraa loogu talagalay halkaa hore gaal shiraa 10 hektar 10 sano horteed baa la qaatay wax ilaa imika dad oo dhul la siiyay kama jiro haltaa ko jagaa dadkii barakacay halka laga qaatay 10 hektar ma jiro 10 hektar oo sidaas ayaa haddana 8 hektar halkan lagu biiriyay 8 hektar hadda lagu biiriyay ma jiro 5 bilood ma jiro hadda 8 hektar magdhow lama siin dadkiina dhul lagama siin hadda dadkii waxay yeeleen wafoon meelaan bay yeeleen buuraha hoostoodii galaan waan tusi karnaa ginjada baa laga qaatay waa kaas lagu soo xiriir dadka marka ginjada ma dawladda ku wareejisay dawladda gaal shiraa ku xidhay ciidanka gaal shiraa ku xidhay waliba dhibaatada booran ka jirto ma yaro dad iyo duunyo way wada gaadhay waa beero dadku ay falan jireen waqtiyo hore laakiin cagaf inta la gashay xoog laga qaatay magna lama siin